halkan waa fila Soomaaliya markasta waxaan aragnaa madaxweynaha oo xafiiskiisa warqadaha safiirnimo kaga gudoomaya danjirayaasha shisheeye ee dalalkoodu soo dirsadaan haddaba waa maxay waxa aadan ogeyn ee qaar kamid ah warqadahan ku hoos qarsan Soomaaliya waxay dhawaan ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka taasi waxay ahayd guul diblomaasiyadeed oo dalka u soo hoyatay hase yeeshee waxaa loo bedelay il dhaqaale oo halis ku ah madaxbannaanida siyaasadeed ee dalka dhaawacaysa qiyamkii diblomaasiyadeed ee qaranka isla markaana qaawinaysa sharaftii dawladda Soomaaliya. We welcome the presence of the permanent representatives of Somalia. Aagan waa dhulka saxaraha galbeed oo dhaca waqooyi galbeed ee Afrika. Waa dhul lagu muransan yahay lahaanshihiisana waxaa isku haysta dalka Morocco iyo ururka Polisario oo taageero ka helaya dawladda Algeria. sheekadeena ku aadan xaraashka iyo beecgeynta codka Soomaaliya waxay daaran tahay arrintan inta badan wadamada Carabta Islaamka iyo Afrika waxay taageereen Morocco Soomaaliya 2018 xilligii farmaajo waxay la safatay dalka Morocco iyadoo xilligaasi lagu heshiiyeen Soomaaliya safaarad ka furato magaalada Rabat qunsuliyadna ka hirgeliso magaalada Dakhla oo qayb ka ah dhulka lagu muransan yahay bishii Oktoobar 2023 boqorka dalka Morocco Mohamed Saades ayaa warqadaha danjirnimo ka gudoomay safiirka Soomaaliya Salaad Ibrahim Ali oo loo yaqaan Atosh hadda maxaa isbedelay afartan siyaasi waxa ay xiriirada diblomaasiyadeed ee ku dhisnaa istiraatiijiyadda u rogeen xaqiijinta il dhaqaale oo iyaga u gaar ah si Soomaaliya uga laabato taageeradii Morocco madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud أحمد معلم فقي علي بلعد iyo Daahir Maxamuud Geelle waxa ay kaliya 12 milyan oo dollar dawladda Algeria kaga iibsadeen codka Soomaaliya ee golaha ammaanka bilowga sanadkii hore ee 2024 wasiir dawlaha arrimaha dibadda Ali Balcad ayaa kulan xogtiisa la qariyay magaalada Brussels kula yeeshay wafdi ka socday Algeria waxaana lagala hadlay in Soomaaliya dib u fiiriso go'aanka qadiyadda saxaraha galbeed codkeedana lacag kaga bedelato Algeria kuna taageerto madaxbannaanida saxraawiyiinta fiqi oo madaxweynuhu uusan ku qabin aaminaad buuxda waxa laga daba diray Daahir Maxamuud Geelle kaasoo magaalada Algiers kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Abdulmajid Tebboune iyo wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Ataf waxa lagu heshiiyay in Soomaaliya ka laabato go'aankii ay ku taageertay Morocco 2018 sidoo kale maadaama ay fadhiso golaha ammaankana u ololeyso qadiyadda saxaraha Carabta taasna ay ku bedelato lacag 12 milyan oo dollar ah hadda waa kaliya 12 milyan waa marka aan idin leeyahay codkii Soomaaliya ayaa la xaraashaya kulamadu waa sii socdeen fiqi wuxuu bishii hore niyo kula kulmay dhigiisa Algeria Ahmed Ataf halka mar kale toddobaadkii hore ay Ataf iyo Ali Balcad isku arkeen magaalada Addis Ababa meela wax ka keena ma aqaan meela u guuro ma aqaan ku dhawaad 3 sano ee la soo dhaafay gudaha wadanka waxa si weyn looga hadalhayay boobka iyo bilaqada lagu hayo xoolihii ummadda iyo hantidii danta guud hadda sida cad waxa codkii qaranka lagu xaraashay afgaarayaasha caalamka waxaan xasuusanaa in ismaandhaafkii siyaasadeed ee Jubbaland iyo dawladda dhexe uu sababay khilaaf ka dhex qarxay Soomaaliya iyo Kenya asaga madaxweyne Xasan oo ilaashanaya danihiisa gaarka ah oo qaadku ugu horeeyay uu ka tanaasulay danaha qaranka tani waxay ka dhigan tahay in xiriirka diblomaasiyadeed Soomaaliya uu noqday mid ku xiran ee la dhaqaale ma jiro wadan loo tixgeliyo saaxiib istiraatiiji ah iyo mid loo xiriyo dana mustaqbalka qaranka